السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمني أرموت هاتي والله دي مكو يوسلالتي انت ترمو مي دمكو يوخسيات جستاتي في دخن كدوسا تشاينا الغير أركتو دنديسان سوشيال ميديا كون وانت هاجر أركاجرتن يودي مغي يغون سيجاتي شير قد أمت الصومالي برناقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبك الصومالي وسلامتي دمانتيني ما توحن دينا يا أخبار idinku aad u baahan tihiin oo weliga anduuka inta ku nool hay aanan akhbaar saasoo kale aanan arag gabadhana agteedii aad u arkaysa waayadan wax ku dhacay magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliya wax ku dhacay waa laga yaabaa muuqaalkan adduunka inta ku noolahay aanan arag oo la arki doonin naag oromo oo laga soo duubay muuqaalkan baraha bulshada la soo galiyay barta TikTok iyo barta Facebook oo adduunka oo dhan saa u qeyleeyaan naagtani waxa oo iyadu sameysay meena jirin idinku qofka Soomaali hadaad hay muuqaalkii oo daawanaysa adaan ku sheegaya walaasha haday ahaato gabadhaasi see dareemaysaa iyadoo dabka iyo dambas la cunsinay sida suugada oo kale oo rooti oo dhowr bilood oo la cunsinayo haday gabadhaasi walaasha tahay see dareemaysaa oo see yeeli lahayd idinku ayaa tiin markaad naagaasa u galaysiin waxa laga yaabaa wallahi dagaalkani inuu Oromiya Soomaali aana weligii aana ku dhicin hadu meeshan ayuu ku dhici doona haday naagaasi oo arweela oona waliba naagaas Soomaali ah oonan ixtiraam aanan lahayn oona cashood aanan lahayn oo waxa la moodi jiray oo muslimiin ahayn oo wada gaal ah hadaa naagaha inta la soo qabto oo xafiiska la keeno oo inta yar ee Oromo oo inta la keeno oo raali gelin waayaan wax meesha ka dhacay waa laga yaabaa muuqaalkan ka xun hadaa naaga Soomaali laga duubi waayo ana nin ma aha oo arkina meeysiin waxa laga yaabaa meeshan waxa idinku aana wariga adduunka inta ku nooshiin aanan arag ayaa naaga Soomaali laga duubi doona marka waxaan ka codsanayaa fikrikaaga dhanka comment-na soo qor gabadhaasi oo muuqaalka laga soo duubayo haday walaasha oo aabaha uu ku dhalo haday ahaato see dareemi lahayd waxaan meel kale kuma ina sameyn waxa lagu sameeyay meesha magaalada Hargeysa inan masaakiin oo iska shaqeysanaysa ahayd marka see u saaw loo galayaa oo hadana muuqaalka baraha bulshada la soo gelinaya naagaha oo arweela oonan ixtiraam lahayn oo walibana oo waxa laga yaabaa marka hore waxa la oran jiray Soomaali waa muslimiin oo muslimiin ahayn walibana gaal ah intiiniba ayaan idin jeedaa kuwa muuqaalkiga daawanay marka waxaan ka codsanayaa naagahaasi hadaa oo la gali waayo oo sharci saa oo xukunka lagu siin waayo sideedoo kale waxa meesha ka dhaci doona waa laga yaabaa oo marka muuqaalka ka xun hadaa naagaha Soomaali laga duubi waayo waad arki doontii walibana